kaana guriga markay soo gaadhay isla markiiba way garatay inay wax khaldan yihiin sababtoo hooyadeed waxay markaas suri jirtay albaabka hortiisa laambad ifaysa si markii oo kaana aabaheed oo markuu khabraysay ay guriga u soo korto laakiin hadda laambadii way jabneed albaabkana wuu furnaa kaana markiiba waxay niyadeeda isku sheegtay inay wax khaldan yihiin habeenkan caawa waxay dareemaysay welwel haddana markay gurigeeda saa ku aragtay welwelkii ayaa ku batay kaana si tartiib ayay gudaha u soo gashay laakiin intay soo galinba urka dhiiga ayaa u soo uray waxayna aragtay meel kasta inuu ku daasan yahay markiiba waxay tiri hooyo iyadoo codkeeda gaaban yahay intaysa halinba kadib waxay maqashay odaga digsiyaashiisa isku garaacmaya isagoo dhinaceeda u soo socda markaas raagtee soo istaagay waxayna maqashay iyada cod naftu ku dhagan yahay odagii ayaa wuxuu ku yidhi iga leexo kadibna gudaha ayuu galay wuxuuna markiiba shiday tarag markaasna kaana waxay eegtay dhinaca codka waxayna aragtay inay hooyada meesha taalo dhulka ayaana la wareegay waxay aragtay hooyadeed Azumi oo markaas dhex jiifto dhiigeedii oo gabigiisa caraga isqabsaday oo webiye hooyada ayaa madaxa kor u qaaday waxayna tiri kaana wuxuu igu yidhi aabaha inuu ku dilay ayuu ii sheegay yasaan kugu sameeyay ayay weydiisay kaana markaas waxay isku daysay caloosha dhaawaca kaga yaala inay xoog u taabato si ay dhiig u joojiso laakiin xoogaa kadib waxay aragtay dhaawaca ku yaala xabadka kaasoo ka darnaa kan caloosha markaas waxay ku jeesatay adagii waxayna ku tiri caawa hooyaday wuxuu ku dhahay intuu madaxa ruxay ma awoodo waxay tiri haa waa awoodaa sixirkaaga isticmaala hooyadii badbaade odagii ayaa si naxariis loo eegay wuxuuna ku dhahay ma awoodo inaan badbaadiyo awoodeyda way sii dhammaanaysaa sababtoo waxaan ku isticmaalay in adiga kuugu badbaadiyo haddana hooyadaas saas ayay ku dhimanaysaa waa ka xumahay kaana way xanaaqday iyadoo gacanta saartay markaa dhaawaca oo isku daysay inay dhiiga joojto waxay tiri waan dili doonaa xaquma laha inuu saa kugu galo sidee ayuu saa kugu geli karaa waa ninkaaga waxaana loo baahan yahay inuu ku ilaaliyo aniga xataa wuxuu isku dayay inuu idilo asagoo aabahaya lagama yaabo inaan nolosheeda ka dhima cafiyo Azumi kaana gacanteeda ayay qabatay waxayna ku tiri asaga ma aha aabaha kaana markiiba way naxday waxayna dareentay sidii adduunkeeda burburiyo kale kadibna hooyada ay hoos u eegtay iyadoo codkeeda markaa ku dhagan yahay waxay tiri adiga waxaa ku dhalay boqorka asaga ayaana intii isa dhamay hadalka odagii ayaa ka jiray wuxuuna ku yidhi hadalkaa iska dhammayso ta nafta ayaa kaa baxayso taasi macquul ma aha ayay tiri kaana laakiin hooyad waxay ku tiri boqorka ayaa ku dhalay aabaha ayaana caawa u sheegay waa sababta uu ii dilay laakiin boqorka markuu ogaaday inaan uurkaaga leeyahay wuxuu iga soo tuuray kasriga kaana markaas hooyada ay ag fadhido odagii weynaana wuxuu taabanayay garabka kaana wuxuuna ku dhahayay waa inaan caawinaad codsanaa laakiin kaana hadalkiisa maysa dhegaysanin sidee buu saa kuugu samayn karaa asaga iyo kan dhalayba labadaba way ka shallaay doonaan labadaba waan ka jari doonaa ayay tiri Azumi markaas way fiirisay kaana kadibna indhaheeda ayaa si tartiiba u xirmay kaana waxay dareemaysay markaas hooyada oo jirkeeda si tartiiba nafta uga baxaysay markay dareentay inay dhimatayna ilin ayaa kasoo daadatay naxdin darteed Toshihiro wuu murugooday markuu arkay gabadha yartaa inay aragtay hooyadeedu dhimanaysa aad ayuuna uga murugaysanaa laakiin ma uusan rabin kaana inay ogaato weli meesha ay kasoo jeedo sababtoo ah markay kaana ogaato meesha ay kasoo jeedo waxay ogaan doontaa dhiigga ay kasoo jeeda awoodda uu leeyahay marka ugu koowaad waa inuu ogaadaa awood ay leedahay inta ay la eg tahay kadibna markaas ayuu xal keeni karaa markii ogaado awood ay leedahayna nafsadiisa ayuu u rabaa wuuna ka qaadan doonaa iyadoonan ogaanin Toshihiro isla markiiba wuxuu maqlay codka maska wuxuu gartay inuusan kaligiis ahayn qofka kaana awoodeeda dareemaya oo ay sidoo kale ay dareemayaan yookayda tuuladeeda ku nool waxa uu rabaa marka hore inuu ka fogeeyo meeshan waxaa laga yaabaa haddii uu ka fogeeyo meesha ay ku dhalatay inaysan yookayga ay dareemi doonin awoodda ay leedahay kaana laakiin marka koowaad waa inuu wax ka qabtaa calaamada gacanta kaga taala maxaa weeye sharkantaas ayay kaana tiri kadibna Toshihiro ayaa gacantiisa kor u taagay markay gacantiisa raacdayna way naxday waxaa meeshaas daloolka korka saqafka guriga kaga yaala waxaa kasoo jeeday naag aad u dheer oo timara dheer leh indhaheeda jaalahana kaana dhinaceeda ayay eegayeen carabkeedana markaasuu soo lulmanayay maxaa weeye waxaas ayay tiri kaana iyadoo gadaal u baxayso odagii ayaa fiiriyo wuxuuna yidhi Tenjo Kodari weeye adiga ayayna kuu timid kaana weli gadaal ayay u baxaysay bahladiina dhulka ayay kusoo tagtay labadeeda gacmood gadaal ayay u jeedeen iyadoo markaas kaana si xor u fiirinayso markay ay dhulka ku soconaysana gacmaheeda ayaa ku xukmanayay carar ayuu yiri Toshihiro kaana waxay tiri ma tegi karo waxaan u baahanaa marka koowaad inaan hooyaday aaso markaas bahaladii isla markiiba u istaagtay waxay urisay dhiiga waxayna u dhaqaaqday dhinaca kaana hooyadeed meydka ah markaasna way urisay waxayna bilowday inay wejigeeda kadibna leefto markaa kadibna waxay bilowday inay afkeeda si saa'ida u kala qabato
kaana wadnaha ayaa fariistay markay aragtay Tenjo Kutari oo markaas bilowday inay hooyadeed laqdo. Markaasna waxay maqlaysaa lafaha hooyadeed oo ku jajabaya bahalka jirkiisa. Markaasna waxay bilowday inay qayliso, "Jooji, waa ku baryaa ka jooji." Markaas Toshihiro isaga laftirkiisa u naxsanaa wuxuuna yidhi waxba kama qaban karo ee kaana sida degdeg ah u xarar. Waxayna labadooda arkayeen bahalkii oo hooyadeed laqaya. Markii ay bahaladii ugu dambeyn joojisay, waxay bilowday inay gacanteeda leefto. Carabkeeda dheeraan u isticmaashay inay dhulka ka leefto dhiigga. Kaana markaas waxay daawanaysay arrintaasoo dhan iyadoo dhaqaaqila ay dareemayso dareemaheedii oo dhan inay ka tageen. Markay bahaladii kor u soo eegtay, ayay markaas kaana dareentay inay iyada u soo jeesatay. Markaas ayayna waxay bilowday inay dib uga cararto bahalada. kaana markaas wixii u horjeysay sida ugu dhaqsiyaha badan ee awoodo. Waxay arkaysa qoraxda oo sii dhacaysa, dabaysha wejiga kaga dhacaysa iyo wadada boorka ay ka horeeya. Kaana ma aysan joojin inay cararto, xataa lugaheeda hadday xanuunayeen, wadnahana uu markaas gubanayay. Markii ugu dambeyn ay gaadhay webiga geeskiisa, hore ayay u dhacday, waxayna dareentay iyadoo neefta ka dhamaatay. kaana markaas waa qaylisay, xoogaa ayayna kor isku soo qaatay. Arriga ayay eegtay iyadoo welwelsan, kadibna gacanteeda ayay kor u qaaday. Waxayna aragtay maradii ay qabtay inay gacanteeda ka go'day. Markaasi calaamadii gacanta kaga taalay waxay bilowday inay iftiinto. Waxayna markaa dareentay inay gacanteeda dhan gubanayso, xanuun zaa'id ayayna dareentay. kaana markaas way fariisatay, waxayna bilowday inay oydo ayada u ooyeysa hooyadeedii dhimatay iyo Michi iyo xaaladda ay hadda iyadu ku jirto. Markaasi muddo badanba kamay soo wareegin ilaa ay dareentay in oohinteeda ay ku dhex darmatay oohin ilmo yar oo ooyaya. kaana ilinta ayay iska tirtay ayadoo markaa codka dhagaysanaysa. Markaas waxay aragtay naagti madha dheer oo madow leh oo horteeda taagan. Naagtaas waxay gacanta ku haysatay maryo cad. Maryada cad waxaa ka yeeraya qaylo ilmo yar oo ooyaya. Markaasna naagta waxay dhahaysay, "Waa ku baryaa waa ku baryaa." Markaas ayay wixii ku haysay, "Ilmahaygii waa ku jeclahay." kaana markaas way istaagtay, ilintii ayayna iska masaxday. Markaasna waxay dhaqaaqday dhinaca naagta, waxayna ku tiri, "Ma fiican tahay? Maxaa kugu dhacay?" Naagta ayaa dhinaceeda u soo jeesatay, waxaana wejigeeda ka muuqday daal aad u fara badan. Kadibna waxay tiri, "Alle Ilaahay ayaa mahad iska leh, waxaan u baahanahay caawimaad." kaana ayaa eegtay naagtii, waxayna tiri, "Ma aqaan inaan ku caawin karo." Naagta ayaa markaa waxay ku tiri, "Waxaan ku dhacay webiga. Markaasna dharkayga oo dhan waa qoyan yihiin, waana qabow. Waxaan isku dayayaa inaan dharkayga bedelo, laakiin ilmaha iima ogola inaan dhulka dhigo. Marka intaan dharka bedelo ilmaha ii kobo oo ku baryaa." kaana markaas gacmaha ayay u soo taagtay. Naagtiina waxay u dhiibtay ilmihii yarka oo ooyayay. La yaab ku ahayd ilmihii yarka inuu markiiba kaana gacanteeda markuu gaaray uu aamusay. Markaasna kaana waxaa soo eegtay naagtii, waxayna ku tiri, "Waxaa laga yaabaa inay aad kuu jeceshahay." Kadibna waxay tiri, "Xoogaa yar ayaa waqtigay qaadanayaa, wax yar kadibna waa soo laabani." kaana gadaal ayay uga soo jeesatay si ay naagta markaas u awoodday inay dharka iska bedesho. kaana markaasi waxay eegtay ilmaha wejigiisa. Ilmaha wejigiisa si fiican may arkeen, laakiin waxay dareemaysay inuu ilmuhu markaas hadba inta kasii dambaysa uu cuslaanayay. Islaanta ayaa markaa waxay tiri, "Waan dhameeyay dhar isbedelkii." Xoogaa kadib kaana waxay dareentay arrin aad u la yaab badan. Waxay dareemaysay inuu ilmaha aad iyo aad u cuslaanayo, ama iyadaa daciifa ama ilmaha cuslaanayay. kaana waxay isku dayday qaabkii u haysay ilmaha inay bedesho si ay si fiican u qabato, laakiin way qaban weysay. Markaasna waxay tiri, "Caawinaad ayaan u baahanahay." Laakiin naagtii uma aysan jawaabin. kaana kadibna maradii ayay ka leexisay, waxayna aragtay inaysan wax ilmaha meesha ku jirin. waxaana wuxuu ahaa dhagax oo marba markasii dambaysa sii weynaanaya. Waxay isku dayday inay dhulka dhigto ama ay tuurto, laakiin dhagaxa gacmeedu ka dhaqaaqi waayay. "Caawiya," ayay tiri kaana, laakiin naagtii marnaba haddana maysan soo eegin. Markaasna waxay isku dayday kaana inay gacmaheeda dhaqaajiso ama ay dhulka fadhiisato, laakiin waxay garatay inay meesha ku qalashay. Mar kale waxay tiri, "Caawiya," waxayna geesaha ka eegaysay odaygii cajuuska ah. Mar dambe ayay waxay xasuusatay inay guriga kaga soo carartay. Jirkiisa yarkaana uusan marnaba awoodin inuu si degdega iyada ku soo gaaro. kaana weli caawinaad ayay dalbanaysay, laakiin cidna ma yeelin hadalkeeda. Xoogaa kadib naagta ayaa soo jeesatay, waxayna soo saartay qaabkeeda dhabka. Naagtii markaas waxay u soo xamaaratay dhinaca kaana, waxayna soo istaagtay korkeeda, waxayna ku tiri, "Waa ku salaamay kaala, hadalkaaga waa maqlay. Waxaa laga yaabaa inaad ka soo baxsatay cadaabta, laakiin marnaba lagama yaaba inaad aniga iga baxsatid." kaana markiiba waxay garatay naagta maska inay u egtay naagtii kale oo guriga hooyadeed ku soo liqday. Markaasi naagta dhinaceeda ayay u soo dhawaanaysay. kaana waxay isku dayday inay qayliso, laakiin codkeedii oo dhan ayaa lumay. Markaas kaana waxay garatay inay yookayda gacanteeda ku dhimanayso. Marka indhaha bahalka eegtana waxay arkaysay dhimashadeeda. kaana markaas neefta ayay ceshatay, ayadoo sugaysa in hal mar la wada liqo oo ay bartaa ku dhimato.
ayadoo sugaysa dhimashadeeda ayay waxay maqashay sharqan sidii in wax la gooyo kale. Xoogaa kadibna bahalkii yookayga ahaa waxay soo daysay qayle aad u xanuun badan. Markaa kadibna madaxeeda ayaa jirkeeda ka go'ay. Markaas kaana dhulka ayuu jirkeeda ku dhacay. Xoodhagihii ay wadayna bilaa culays ayuu noqday. Yookayga madaxiisa xagga geeska ayuu kaga dhacay, jirkeedina daciif ayuu noqday iyadoo wada dhiig meesha ka dhigtay. kaana madaxa ayay kor u qaaday, waxayna aragtay markaas nin dheer oo koofiyad qaba. Markaasna dharkiisu waxay ahaayeen kulligood sibiri, seeftiisuna waxay ahayd mid dheer. Markaasna waxaa ku yaalay dhiig freesha oo bahalka ah. kaana markaas waxay bilowday inay qayliso markuu ninka dhinaceeda usoo dhaqaaqay. Waxayna dareentay inay habeen dheer ay badbaaday, sababtoo markii koowaad aabaheed ayay ka badbaaday, markii xigtayna Haji Sako Sama, kadibna bahaladii hooyadeed liqday. Haddana waxay aragtay yookaydan webiga agtiisa isku dayay inuu iyada ku dilo oo hal mar uu liqo. marar badan ayay badbaaday, laakiin wuxuu ekeed in waqtigii dhiman lahaa la soo gaaray. kaana markaas naxdin ayay la booday markii seefta uu wejigeeda aad ugu dhowaa. ninka si tartiib ayuu seefta dhulka u gashay, kadibna agteeda ayuu fariistay. waxay eegtay seefta, waxayna aragtay katana qadiimi inay tahay oo dadkii hore fartooda ku yaalo. ninka markaasi kaana gacanteeda ayuu soo qabtay, waxayna la yaabtay gacantiisa u naxariis badan tahay xoogaa ka hor. kadibna wuxuu bilaabay inuu si xanuuna gacanteeda u taabto. markii ay qaylisay isla markiiba gacmihiisa uu ka qaaday, calaamadeeda ayuuna hoos eegay. wuxuuna yidhi, waa run, waxaan u qabay inay been tahay, mana isdhahayn nolosheeda waa arki doontaa ilaa hadda aan arkay. kaana markaas si tartiiba ayay u soo kacday, waxayna isheeda la raacday meesha indhihiisa ku jeedeen. waxayna aragtay inuu markaas fiirinayay gacanta calaamada kaga taalo. markaas waxay u malaysay inuu yookay kale u yahay. markaasna waxay la yaabtay inta yookay oo markaas bili-aadan iska dhigi karo. kadibna ninkii wuu arkay inay markaas kaana ka baqsan tahay, wuuna qoslay. wuxuuna ku dhahay, aniga haddaan u baahanahay inaan ku dilo mar hore ayaa meesha kugu dili lahaa, laakiin marba inaan ku dilo. yaa tahay ayay kaana weydiisay. ninkii wuu istaagay asagoo weli hoos u fiirinaya. markaas wuxuu yidhi, su-aasha ka wanaagsan waxay tahay, adigu yaa tahay? kadibna dhawaqa digsiyaasha isku garaacma ayaa soo dhowaaday. odagii ayaana qaylay, wuxuu yidhi, ayada ka fogow, asagoo ninkii faraha ku taagaya. ninkii isla markiiba odaga dhinaciisa ayuu soo jeestay, seefta ayuuna ku taagay. markaasna wuxuu yidhi, maxaa weeye waxaan gaabana foosha xun? odagii ayaa markaas ku xanaaqay, isagoo faraha ninka ku taagaya. wuxuu ku dhahay, waxaa ku wanaagsan inaan labadeennaba naga fogaatid. waxaan miyaad garanaysaa ayuu ku yidhi kaana, asagoo sheegaya odaga cajuuskaas. markaa kaana way istaagtay, boorkiina waa iska jaftay. markaasna ninka ayay eegsay iyadoo naxsan, waxna maysa dhihin iyadoo odaga ag istaagsan. ninkii ayaa odaga ku jeestay, wuxuu yidhi, yookay ma tihid ee maxaa taha? markaas ayuu yidhi, Toshihiro. kaana way yaabtay markii magaciisa maqashay. intaasoo dhan ayay ag joogtay, maanta ayaana ugu horreysa inay odaga magaciisa maqasho, Toshihiro. saaxiibada ama Toshihiro ayay kugu yeeraan ayuu dhahay. markaas ayuu Toshihiro wuxuu ku dhahay, magacaaga ma adi ii sheegtid? markaas ayuu ninkii intuu Toshihiro soo eegay wuxuu ku dhahay, aniga waxaan ahay ninkii gabadhan badbaadiyey. markaa kaana waxay ku jeesatay Toshihiro, waxayna u sheegtay inay la kulantay yookay, taasoo ku khiyaantay ilmo yar, markaasna ay cuni rabtay. markaasna Toshihiro dib wuxuu u eegay maydkii bahalka meesha yaalay. Uriyana weeye ayuu dhahay Toshihiro. waa la yaab, sababtoo ah weli hore looguma arag dhinaca magaaladan. waxaas ayay soo raacday ayuu dhahay ninkii isagoo ku taagay seeftiisa dhinaca kaana gacanteeda. waa inaadan seeftaada dadka ku taagin, gaar ahaan gabar yara, akhlaaq ma lihid miya? ninkii wuu qoslay, wuxuuna ugu jawaabay, waxaa loogu talagalay akhlaaqda in loo muujiyo dadka sharafta leh ee ma ahan in loo muujiyo qof dembi galay kadibna cadaabta ka soo baxsaday. kaana arrinkaas ayay ka naxday, kadibna gagadaal ayuu baxday. ninkii ayaa wuxuu ku dhahay, waxyaabo badan ayaad garanaysaa, lamana rabin inaa waxaad garanaysid. ninkii ayaa kadibna wuxuu ku jawaabay, markaad aragti in adduunka keligaa ka tahay oo aad qof aad ku tiirsata aada haysan, markaas waxyaabo badan ayaa baranaysaa. Toshihiro kadibna seefta ayuu eegay. markaa kadibna ninkii wuxuu ku yidhi, xagee ayaa ka timid? ninkii garbaha ayuu ruxay, wuxuuna dhahay, taasi muhiim ma aha. waxaa muhiim ah meeshaan u socdo. waxaan rabaa inaan dhaafo dhinaca webiga, xaggaasna waxaa ku taala tuulo yar. markaas ayuu Toshihiro ugu jawaabay, annagaba waa u soconnaa. kaana intii haliyeen oo dhan badankeed way aamusneed, sababta waxay eegid qof hogaamiye inaysa haysan aan Toshihiro ka ahayn. haddana waxay ku qasbantahay inay amarkiisa qaato. ninkii ayaa markaa wuxuu dhahay, dhibaato iguma haysa inay dad iraacaan, waxaa ii yaala meesha doon yar. markaas ayay kaana waxay tiri, waxaan u malaynayaa xoogaa kor inay idhahaysay, qof xushmad mudan ma tihid.
ugu dambeyn way hadashay ayuu dhahay ninkii, waxaan ma malaynayay inaadan hadli karin. Markaa kadibna madaxiisa ayuu hoos u jeediyay wuxuuna dhahay, waan kaa raali gelinaya inaan ku caayay, haddana waxaan jeclaan lahaa inaan ku kaxeeyo. Markaas kaana madaxa ayay ruxday, waxayna ku jeesatay ninkii waxayna ku tiri, waxaan jeclaan lahaa inaan barto magacaaga. Ryan ayuu ugu jawaabay isagoo weli madaxiisa hoos u haya. Markaasna kaana madaxeeda ayay hoos geysay iyadana waxayna u dhaqaaqday dhinacii doontii oo ninka tilmaamayay. Ayadii Toshihirona way galay doontii. Ninkii markaas uu dhoola cadeeyay isagoo markaas seeftiisa xareynaya. Kadibna wuxuu u dhaqaaqay dhinacii yookayda wuxuuna soo saaray dhalo yar wuxuuna ka buuxiyey dhiiggii bahalada. Markaasna wuu soo kacay. Dhaladii wuxuu bilaabay inuu maryihiisa hoostiisa ku qariyo. Kadibna dib ayuu wuxuu u eegayay kaanihii Toshihiro asagoo markaas dhoola cadeynaya. Shaqadiisa hadda waxay noqotay mid aad u fudud maadaama uu dhiiggii bahalka helay.